السلام عليكم. طبعا qalad oo dhalinyaradu galaan waxaa jiro qaladaha dhalinyaradu rag iyo dumar laakiin dib ay ka ogaan doonaan inay wax loo baahnaa samayntooda markii la leeyahay hebel ama hebelaayo waa qabiil dhinaca nolosha ah waxaa loola jeedaa inuu tijaabooyin badan soo maray inuu qaladaadkiisa ka faa'iidaystay gaar ahaan in dadka waaweyn waxaa lagu magacaabaa waayo arag ama uu yahay qof soo aqriyay tijaabooyin dadka kale duwan aan u galno mawduuca qaladka koowaad ha ku arkaan dadka istus haddii aad suuqa aadayso adiga oo soo gadanayo dhar ama gabar ama wiil mid kaa tahayba laakiin aad u gadanayso keliya noocaas ayay xiran tahay ama calaamada noocaas ayaa ku taalo dharkeeda arrinka noocaas ah in uu u noolaado sida dadka kale u cajibi geliyo waa qalad aad ka shaqayn doonto inta noloshaada waxaaba dhici karto in uu qofku soo iibsado wuxuusan rabin keliya sida dadka uu u tuso in dadku qale dadka tijaabooyinka soo maray waxay leeyihiin dharku u xiro ama u soo iibso keliya inuu adiga ku cajibiyey inaad ka heshay hana u xiran hebel ama heblaayo ayuu cajibiyey labaad qodobkan wuxuu gaar u yahay gabdhaha waxaa jirto baryahan oo raadhayso ma doonaysaa adiga oo gabar yar ah oo qurux ilaahay siiyey in wajigaadu uu u muuqdo habar cajuus ah adeegso in badan make-upka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo baryahan caalamka dhan waxaa soo tarayo qeyladhaan laga muujinayo natiijada xun ee uu ku reebayo wajiga make-upka iyo inta badan waxyaabaha wajiga lagu murxiyo ee lagu qurxiyo waxaa dabcan waxay ka samaysan yihiin waxyaabo la isku daro iyo kiimaawiya ma ahan shay dabiici ah waxay dilayaan jirka kaasoo adiga oo gabar yar ah u muuqanaysa iyo muxbo oo kale wuxuu daraasada sameeyey rag kala duwan oo kala diin ah ayaa la weydiiyey kuwa ku cajabinayo muuqaal ahaan waxaa la soo istaajiyey gabdho badan oo qurxoon oo loo mariyay make-upka iyo gabdho kale oo qurux la sheego aan lahayn oo dabcan dabiici ah nimankii dhammaan waxaa soo jiitay gabdhaha aan make-upka marsan waxayna leeyihiin anigu rag ahaan waxaa u jiitamaya dareenkeyga oo soo jiidanaya gabdhaha aan marsan make-upka qaladka saddexaad baraha bulshada waqtigaada oo inta badan aad ku bixiso baraha bulshada hore ayaan usoo sheegnay in shirkadaha soo saaro baraha bulshadu ay fuuqsadaan waqtigaaga gaar ahaan Facebook oo ah god madow oo nuugaya waqtigaaga waxaa ka mid ah in natiijooyin xunxun laga dhaxlo in uu qofku dareemo in uu raali ka ahayn naftiisa shakligiisa ama qaabkiisa markuu isbarbar dhigo sawirada iyo waxa uu ku arko in gabdhuhu ay iska dhaadhiciyaan inay heblaayo ka qurxoon tahay taasoo murug ku keenayso in arrinka aan sax ahayn ee kama qurxoone adiga ayaa iska dhaadhiciyey tan kale ogow sawirada inta badan ee la yar ruuxiyo aynan ahayn sawir dhab ah dhinaca kale Instagram-ka waxaa jirto warbixin dhowr bilood ka hor la soo saaray oo leh dhinaca sameynta qurxoon ka daran yahay Facebook waa caalam been ka samaysan waa sawiro la filtreeyay in uu qofku arka sawirada aan jirin in uu qofku ku ridaan xaalad nafsi ah ma jirto tilmaamo la isku raacay oo quruxda ah qof kasto meel ayuu ku qorxoon yahay ilaahayna